السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان قدامنا سون للموز ميديا وجدين قلبيه واحد جوجو أمن قفت قرحي لو قدام عمن رعب وبقرد إن مقدش ولي وقفتان والله بنحاول إن حاجة بقى وجدين يمكن لو قدام حاجة عدك عطوش يري درساق عطوش قرنت أمها عطوش يري لبادكيس واي قعنتي سلامات واي وما أنت ترقدوا إنك بدلي دونا وإنك إلهي أوهي حاجة عدك ما شاء الله وحليه سودا والنعاش أصحابتا aad uma santiin haween wanaagsan ayaan idin leenahay cidii maalin ay u tahayna maalin wanaagsan fadlan channelka hadaa ku cusub tihiin subscribe like share comment inta ma naga caawiya hay caaw asxaabta maxaa عطو شيري asxaabta horta waxaan u wadaa sheekooyin gaagaaban waxaa la leeyahay beriba waxaa jiray 3 nin oo hal gaari isla saarnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya saddexdaasi mid wuxuu uu ahaa reer waqooyi mid maay ayuu ku midna waxa uu ahaa reer Jowhar kii eelayga soo booda anigu soo darooro looqa xaajigaawo keenka soo leexanaas ma fahamtay فاك فاهم kii oo reer waqooyiga ayaa asagana soo booda wuxuu yiri warday anigu soo kumaan oran waan soo soconaayo taleefanka nooga dhaxba warta ha inaad gelinaysaa kii reer Jowhar soo booda markaas asagana wuxuu yiri aroog baawurka iyo jooji marka asxaabta waxay saddexdoodu waxay noqdeen in ay isku mashquulaan sheekada labaad waxay tahay 1967 waxaa jirtay xul ka socday Baraawe iyo sidoo kale xul ka socday Muqdisho Muqdisho baxday Baraawe tagtaal Ibra loo soo badiyay waxay tahay Muqdisho ma yeeleen oo aarsanina Baraawe la wacay marka Baraawe nin eelaya daafac u dheelayman Muqdisho karoos keentay dawlad laga dhali markaas mayoolaas aniga hore leenka ogay gadaal ma fado hore leen isku ogaa gadaal ma عطوش maxaa kale noo heesaa sheeko kaleeto oo hadda yani asxaabtaada aad la wadaag marka albitri xitaa wuxuu sheegay wuxuu dhahay gool ma aabanoniya ku celi maxaa tir maxay yiri gadaal ma gadaal ma iskaga dhigna marka Soomaaliya magac kala duwan ay leedahay luuqadeeda maadaama Soomaali kor laga yahay waxaa jiro dhowr luuqad ay ku hadasho dawladii hore ee siyaad bar waxay inta badan ay xoog saaraysay xagga luuqadda si loo heli lahay luuqad la isku fahmo oo Ras Kamboni ilaa Ras Caseer ay isku fahmaan waxaan xasuustay walaale Ras Kamboni ilaa Ras Caseer waligood maqli jiray xagee la yiraahdaa Ras Kamboni waxaa la yiraahdaa gobolada waqooyi Ras Caseerna gobolada orax sameeyo koonfur iyo waqooyi markaas la kala yiraahdo Ras Kamboni Ras koonfur kala camal ah waqooyi iyo koonfur gobolada waqooyi waxaa loo yaqaanaa Ras Caseer yani koonfurna maxaa laga yaqaanaa Ras Kamboni farani ma aqaana hada idinka may anigu waxaan ku maqli jiray xayisiin anigu madrasada dhigta marka xaaji banaadir amal markuu xayisiinay su'aal ayaa lagu weydiinaya aman waxa sheegtaa wax markaas socota ka hore waa socotaa way ka hore waa harkayga har ma ana hoos anaga hoos ayaan u naqaanay anigu har baan u aqaanaa su'aasha xigta waxay tahay waxa sheegtaa hadaba qaaradda ugu yar ama gobolada Soomaaliya mid kamid ah oo asagana kamid ah gobolada oo loo aqoon jiray jidda ama magac kale lagu daray karay magac oo kamid ah gobolada Soomaaliya oo haddana ay ku yaaleen ay ku taal warshid soo saarta dhanka sokorta oo magacyo laba magac ayuu lahay gobolkaas labada magac ayaa laga doonayaa warshada sokorta soo saari jirto waxaan moodaynaa gobolada Jowhar iyo Shabeelle Dhexmeena ku maqli jiro umaleynaa ma hubo waan umaleynaa ku maqli jiro sax hadda ku taale oo hadda yani xagee ku taale Jowhar waka sax waree waan gartay noonu Soomaali dhalada waan ahay dabadii ku moodaysaa magac kale ay lahayd Jowhar inta aan Jowhar loo bixin waxaa jira magac kale oo loo yaqaan magaci kale loo yaqaan
jawhare manawad ba anoo jawhar baa kuu maqlay waxaa la oran jiray buunda baraawe jawharta muu iga leedahay horta nin wato sheero horta ma sha Allah ilaaha horta wuxuu ku siiyay heybad talent ku siiyay hadda waqtiga ku jirno Soomaaliya waa aragtay waxa jira xanimaadyo oo sii zaa'idinayso xanuunka coronavirus sida aniga hadda maanta arkay wiil oo ii soo diray warbixin coronavirus inuu sii marayo 60 oo ay dhimatay 2 caafimaday 2 54 hartay xitaa maxaa ka leedahay